muqdisho gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida mudane xasan cali nuur shuute oo ka hadlay kulan xasaasi ah oo ka dhacay magaalada muqdisho ayaa ficil u beddelay go'aankii madaxweynaha ee ku aadanaa hubka sharci darrada ah ee lagu dhex haysto gudaha caasimadda. Shuute oo digniinta madaxweynaha sideeda u qaatay ayaa sheegay in maxkamad la soo taagi doono cid weliba oo faraha kula jirto hub sharci darro ah. Sidoo kale wuxuu tilmaamay in ka maxkamad ahaan ay diyaariyeen xubno la shaqeeya ciidamada ammaanka oo marka lala wadaago xogta soo jaraya waaranka u oggolaanaya in la geli karo guryaha ama goobaha hubka lagu hayo. Gudoomiyaha maxkamadda ciidamada ayaa sidoo kale uga digay saraakiisha dowladda inay arrintan qayb ka noqdaan, isla markaana iyaga oo laga faa'iidaysanayo darajadooda aan loo dhiiban karin hub. Haddii ay taasi dhacdana ay tallaabo cad ka qaadi doonaan sarkaalkaasi. Waa dembi weyn in laga ganacsado hub, waa jariimo lid ku ah badqabka muwaadinka iyo badbaadada dalka. Waxaa kale oo dembi ah in iyada oo lagu